kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada inaga daawanaysa gidigiinba meel walba aad dunidii daafaha caalamka ka joogtaan u soo dhawaada barnaamij yar oo ku qaada dhigi doono milicda iyo quruxda caasimadda gobolka Banaadir ee Muqdisho. Halkani waa caasimadda gobolka Banaadir ee Muqdisho. Halkani ma ahan London. Halkani ma ahan America. Halkani waa caasimadda gobolka Banaadir ee Muqdisho. Bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir ayaa waxaa madaxa xanuujiya faralka guracan qaraxyada iyo dhibaatooyinka ka jiro, balse waxa ay mar waliba madaxa ku dejistaan quruxda iyo milicda caasimadda si walbay ahaataba. Dhanka kale waxaad u jeedaan garoomada quruxda badan ee habeenkii maalinkiiba lagu ciyaarayo. Kani waa wariyaha ugu caansan guud ahaan Soomaaliya iyo waliba gobolka Banaadir. Waa tibiye caan ah, tibiye dunida loogu jecel yahay. Maxamed Qadar Ibraahim waa wariyaha ugu tabinta quruxda badan, madaxana ay ku dejistaan dhalinyarada gaar ahaan kuwa ku dhaqan gobolka Banaadir. garsoorayaashu ayaa isu diyaarinaya ciyaartaan marka waa ka xulka Banaadir maanta Hanad Umar Cabdullaahi iyo Cabbaas Maxamed Ibraahim Mascuud oo weerarka ah iyo Ibraahim oo difaacaya. Sakriyo gool haya iyo Sakriyo weerar ah. Ya Sarqaawi waa ninkii banaanka u soo saaray xulka kana runtii waa la baasay. Ugu dambeyntii Banaadir baa baasatayo. Waa kan ciyaartooyga xulka kubadda cagta ee Galmudug ayaa tuuraya kubadda. Galmudug ku khatar badan goolka, laakiin waa kan ciyaartooyga Ibraahim Ilyas ayaa qaatay afka hore goolka ay durbuus soconayaan. Waa kan ciyaartooyga xulka kubadda cagta ee Banaadir haya Banaadir afka hore goolka. Bum! Yes! Yes! Wow! Absolutely fantastic! Goal! Sidoo kale kani waa xasaasi. Waxa uu ku dhashay Shabeellada Hoose ee markaa waxa uu imaaday dalxiis caasimadda ummadda Soomaaliyeed ee Muqdisho 2012 balse waxa uu ku bilaabay kooxda Genyo oo ahayd kooxdii ugu horeysay oo ciyaaro 2017 waxa uu iskaga soo hayaamay kooxda Genyo wuxuuna ku soo biiray kooxda Horseed oo ku noqday shumaca garoonka halyeyga garoonka libaaxa garoonka iyo waliba guud ahaan laacibka gobolka Banaadir isagoo kooxda Horseed kula qaatay waqti qurux badan. Ha ahaatee kooxdii uu ku soo bilaabay Genyo aan iraahday Genyo waxa uu kula soo guuleystay 5 koob. Hadeertan waxa uu joogaa laacibkii hore ee kooxda Genyo iyo Horseed waxa uu maanta joogaa kooxda Gaadiidka, kaasi oo u ballan qaaday inuu xirfadiisa si dhab ah ugu harbixi doonayo inuu la qaado kaaba badan. Ha ahaatee waa ciyaaryahan khibradiisa aad u sareyso, xulka qarankana u saftay. wariyaha caanka ee Maxamed Qadar tibinta looga bartay waxa ay gaartay in lagala socdo gudaha garoonka iyo waliba taleefoonada gacanta iyagoo dhalinyarada geesanayo TV-gana ka daawanayo muuqaal ahaan, balse dhegta u raaricinayo earphone-kana gashanayo taleefoonada si ay tibinta tooska ee Maxamed Qadar oo la socdaan. siyaasadii haddii lagu wareeray haddaba kaalay oo jabi qurux badan qaado. Muqdisho waa ballaaran tahay, allana ha nabadeeyo. waxaa sidoo kale xusid mudan in garoonka weyn ee Muqdisho Stadium dib loogu soo celiyay dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel walba ay dunida ka joogaan ay ku riyaaqeen. waxaana rajaynaynaa maalin maalmaha ka mid ah in ay noqoto garoonka lagu qaban doono koobka adduunka.
aad baad u mahadsantihiin. barnaamijka haddii aad ka heshay la wadaag asxaabtaada sii sheer garee waadna mahadsan tahay.